madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa maanta hortagay golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug kadib furitaanka fadhiga golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa khudbad ka horjeediyay golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug waxa uu sheegay tan iyo markii la doortay oo ay ka soo wareegtay 30 maalmood inay qabteen howlo waaweyn oo Galmudug muhiim u ah oo ay kamid ahayd xalinta khilaafaadkii ka jiray dowlad goboleedka Galmudug madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ka codsaday in la siiyo muddo 30 bari ah si ay u soo magacaabaan golo wasiiro oo tayo leh baarlamaanka howlwadeennada baarlamaanka ciidamada amniga sugaya dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaan bacdigeed mudanayaal iyo marwooyin sidaad wada ogtihiin madaxda dowladda Galmudug waxaa la doortay 2 Febraayo 2020 taasoo macnaheedu yahay in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay xilka kula wareegaan isla markaana caleemasaarkii iyo golaha wasiirada ku soo magacaabaan muddo ku siman 30 bari sida uu dhigayo qodobka 48aad farqadiisa labaad ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug mudanayaal iyo marwooyin muddadaas 30 bari ee la siiyay macquul waa nagu noqon weyday inaan ku soo dhameystirno hawlihii naloo igmaday sabab jira awgeed oo ay kamid tahay khilaafyo taagnaa oo ka dhashay doorashadii Galmudug iyo arrimo kale oo badan sidaa daraadeed waxaan ku mashquulnaanay madaxweynaha xal u helidda khilaafyadii taagnaa iyo in aanu xalino tabashadii siyaasiyiinta naga soo horjeeday alxamdulillah maanta waxay noo maraysaa heer gabagabo boqolkiiba 90 waa noo qabsoontay awshii dib u heshiisiinta aan wadnay sharaf ayay tahay inaan mar labaad muddo bil gudaheeda ku soo hor istaago baarlamaanka sharafta leh ee doortay waxaana mar labaad gudoomiyaha iyo gudoonka iyo xubnaha baarlamaanka ka codsanaynaa in la siiyo muddo kordhin ku siman 31 Maarso 2020 muddadaas bisha ah waxaanu ku soo dhameystiri doonaa dib u heshiisiintii aan wadnay sidoo kale waxaan ugu dhici doonaa caleemasaarkii waxaan sidoo kale ku soo xuli doonaa golo wasiiro oo qiimo badan kuwaasoo aqoontoodu ay gaarsiisan tahay heer master degree Galmudugna wax badan ka qaban doona mar labaad iyo mar saddexaad baarlamaanka sharafta leh iyo gudoonka baarlamaanka waa uga mahadcelinayaa dadaalkooda iyo shaqada qiimaha ay wadeen sidoo kale waxaan salaan uga sidaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Qoorqoor oo asaguna ku mashquulsan howlaha amniga iyo dib u heshiisiinta Galmudug runtii shaqo fiican ka qabtay aad baa mahadsantiin baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu dambeyntii cod gacantaaga ugu codeeyay in muddo 30 maalmood la siiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si ay u soo magacaabaan golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug 48aad iyo qodobka 50 toddobaad ayaa ka hadlaya arinta la xiriirta muddada laga rabo madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku inay xafiiska la wareegaan soo dhisaan golaha wasiirada ku soo gudbiyaan baarlamaanka golaha wasiirada 45 cisho gudahood maalinta la doortay ama la dhaariyay caleemasaarka iyo la wareegidda xafiiskana ay noqoto iyo dhaartuba ay ku dhacdo muddo 30 cisho gudahood Abdulqaadir Afrika Dhuusamareeb